soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeenu maanta wuxuu ka saabsan yahay air travel. Waxa weeye barashada barashada ku socdaalka hawada. Inta badan air travel yani waa mid ka duwan xamuulka ama gaadiidka kale aynu raacno marka aynu meel tegayno. Marka air travel waa system iyo nidaam ka duwan kuwa caadiga ah ee daily life-ka maalin walba aynu aragno. wuxuuna leeyahay erayo iyo kelmado iyo system u gaara oo loo raaco diyaaradda, waana ka duwanta mar walba dee gawaadhida iyo basaska iyo waxyaaba kale aynu raacno. Marka waxaa aad iyo aad u muhiima inaad barato kelmadaha la xidhiidha ereyada la isticmaalo, systemka la maro markaad timaado airportka ilaa aad ka raacayso diyaaradda. systemka maaragtay la raaco kelmadaha ku jira vocabulary-ga, sentences la isticmaalo, waxyaabaha waa muhiim inaad barato. marka halkan waxaan kula wadaagi doonaa step by step yani habka aad marayso oo ku saabsan air travel, magacyada iyo kelmada iyo vocabulary-ga iyo weliba sentenceska iyo weliba phraseska la isticmaalayo. waayo toos waan bilaabaynaa. marka haddii aad doonayso luqadda ingiriiska inaad barato, waxaa aad iyo aad u muhiima mar walba inaad samayso maaragtay mawduuc gaar ah inaad wax ka barato, vocabulary-giisa iyo ereyadiisa iyo waxyaaba la isticmaalo inaad ka barato. taasaa ku horseedi doonta inaad meel fiican ka gaadho. ama laakiin haddaad maalinba kelmad ama 10 kelmadood aad xifsado ama aad tiraahdo waan xifdiyayaa, wax saas oo manaafacaad badan ku samaynayso. laakiin shayga aad weelayso, aad fahamto, aad ogaato systemka iyo waxa uu soo shaqaynayo baa mar walba faa'iido leh. way toos waan geliyaa air travel departure wax loo yaqaanaa hadda waa tigitaanka iyo bixitaanka, waa magacada. marka when you arrive at an airport, markaad soo gaadho airportka, the departure board will show you the flight numbers and departure times and destinations. waxa uu leeyahay markaad airportka soo gaadho departure board wax loo yaqaanaa shaashada ama boardka inta badan maaragtay ku tusinaya flightyada dhammaan wixii flight ah ee markaa ay leedahay goobtaasi, wixii baxaya ayaa leedahay goobtaas iyo nambaradooda, sidoo kale xilliga ay baxayaan, sidoo kale meesha ay maaragtay tegayaan. tusaale ahaan hadda wuxuu ku leeyahay wuxuu tusinayaa flight numberka, tusaale ahaan BA 735 oo kale tusaale ku siinayaa. departure time xilliga la baxayana 8:40 oo xilligaasoo kale. destination iyo meesha markaa maaragtay la tegayo, tusaale imika ku oranayo flight numberka waa 300 meesha xilligaad baxaysaan waa 8 meesha tegaysaan waa Soomaaliya taasoo kale. taas ayaa loo yaqaan markaa departure board. hadda waa ku qalqal departure board loo yaqaanaa shaashada ku tusinaysa wixii flight ah ee markaa jira iyo weliba dee nambaradooda, macluumaad dheeraad iyo waqti xilliga baxayaan iyo goobta la tegayo. aad check-in xilliga meesha hubinta, the check-in desk miiska hubinta waa ka inoo muuqda halkaas gabadhaas ay hubinayso. dabadna qofka waxaa dhahaa passenger, boorsada yar waxaa dhahdaa hand luggage, boorsada gacanta taa oo ku wata trolley-ga waxyaalaha waa alaabta ku riixan wax loo yaqaan trolley. boorsada ku dul saaran wax loo yaqaan luggage, taa ay ka qaaday ee weyn wax loo yaqaan suitcase. marka suitcase iyo luggage waxaa kala duwan. suitcase waa midda weyn ee dharka iyo alaabaha waaweyn lagu gurto oo loo yaqaan suitcase. luggage waa kuwa kale alaabaha yar lagu gurto inta badan qofku qaadan karo ayaa loo yaqaanaa luggage. marka haddaba check-inka oo meesha lagu hubiyo maaragtay dee suitcase-kaaga lagu hubinayo boorsooyinkaaga, shandadaha aad wadato, aqoonsigaaga, ticket numberkaaga, waxyaabahaas oo dhan baa lagu hubiyaa. marka to check it, someone will check your ticket and weight. wuxuu soo ku miisaamaya alaabaha aad wadato oo kale iyo luggage buu miisaamaya. if it's more than for example 20 kilograms, haddii 20 kilogram ka badan tahay qofku waa inuu isagu maaragtay ama qaato ama wax dheeraada uu bixiyo. You can take your hand luggage with your own aircraft. haddii 20 kilogram ay ka badato waxa aad wadataa, waxa qasab ah inaad adigu waxaaga aad qaato oon aan lagu qaadin, oon macnaha meesha lagu rido shandadaha aan lagu gelin, laakiin adigu aad diyaaradda la raacdo ayaa qasaba. 20 kilogram wax ka badan ma qaado. waxa laga yaabaa sidoo kale qof wadada oo socota waxaad ku odhan kartaa uun isagu culays badan lahayn iyo qaad oo qaybtaadii miisaankaaga saar. marka gacantaada ku qaadanaysaa the aircraft waa diyaaradda la tegaysa adigu. you can also get boarding card. halkaas weliba sidoo wax lagu siinayaa boarding card waa midka diyaaradda lagu raaco maaragtay inta badan qofku qaato ee diyaaradda lagu raaco ayaa loo yaqaanaa maxay
the boarding card ama boarding pass baa loo yaqaan labadaba. And then you can go through the passport control, dabeedna waxaad toos u tegaysaa qaybta baasaboorada lagu controlo ama lagu eego ama lagu hubiyo, where someone checks your passport, qof baa hubinaya baasaboorkaaga. And then the departure lounge, into the departure qaybtaas bixitaanka adoo ku jira buu hubinaya weli baasaboorkaaga, deedna hubinaya, deedna marka qofku aqoonsado oxydiiniya. When you can buy things in the duty free, meelaha wax ka iibsan karto waxa loo yaqaanaa duty free shop. Duty free shop wax loogu bixiyo waa mid ka madax bannaan cashuurta iyo waxaas buu ka madax bannaan yahay. Deedna waxaad doonaysaa ka iibsan karto ama dukaan inta badan waxyaabo badan lagu iibiyo oo maaragtay qofku waxyaabo sii qadan karo. Iminka halkan waxaa ku qoran tusaale sigaarka iyo perfuumka, cadarka iyo xukulli sigaarka. Marka sigaarka kulli wax fiican maahan, cadarka kale dad u baahato, wax yar oo calaaliso xanjo kale dad u baahato, biir dad u baahato, wixii markaad u baahanayso oo dhan baa laga iibsadaa. Marka waa qaali, mar walba 3 jibaar buu ku yahay waxyaabaha ay yaala suuqa caadiga yaala. Suuqa hadduu ku yaalo $1, halkaa laga yaabaa in laga siiyo $3 laga siiyo laga yaabaa. And then you can wax lagu leeyahay marka shortly before the take off, intaanad kicin diyaaraddu intaanad duulin. Take off waxaa loo yaqaanaa diyaaradda markay kacayso, xaadidda ama duulidda ama hawada diyaaradda markay gelayso loo yaqaanaa take off. Marka waxa lagu leeyahay shortly before take off, kahor intaanad diyaaraddu kicin, you can go to place where you can get on the plane. waxaad tegi kartaa meesha aad ka helayso diyaaradda. Tusaale ahaan geedka aad ku qoran tahay, albaabka aad ku qoran tahay, geed waa numberka, geed numberka, geed 3 iyo geed 5 halkan u yaala. waad arki doontaa kuwana geedadku waxa weeye albaabada laga baxo ee hadhow gaadhiga diyaaradda ku geynaya soo istaago, laga yeedhin doono magacaaga iyo tikidka nambarkaaga iyo markaas macluumaadkaad ka helayso oo la yaqaana boarding passkaaga aad eegaysaa ama boarding cardkaaga aad eegaysaa, kabacdi waxaad ka helaysaa geedka kugu qoran ayaad maaragtay aad ka helaysaa. dabeedna kaasaad toos u tegaysaa, waa hor fadhiisanaysaa marka intaad sugayso. markaas oo la yaqaana gate. You can go on the plane or the gate 3 iyo gate 5 when you board in plane. marka diyaaradda raacdo board waxaa la yaqaanaa in diyaaradda raacdo already. When you board the plane, marka diyaaradda raacdo ama fuusho, you can put your hand luggage in a small cupboard above your seat called overhead collar. marka diyaaradda korto, alaabtaada boorsooyinka gacanta ku haysta waxaad dhigi kartaa small cupboard, cupboardka meesha yar ee shandada yar above ka sareysa seatka kursigaad fadhido midda ka sareysa. meelahana soo dhigi doonaa si aan tusaale fiican idinku noqdaan, oo loo yaqaano overhead locker. lockerka sare ee madaxa korkiisa loo yaqaanaa, kaas ayaa loo yaqaanaa marka overhead locker. You then have to fasten your seat belt. dabeedna waa inaad xidhato suunka diyaaradda seat belt, and then fasten your seat belt. There is no delays, haddaan wax dibdhici jirin. The plane moves slowly, diyaaraddu si yar tartiib ayay u dhaqaaqi doontaa to the runway and then it take off. taas ayaa la yaqaana marka saaxiibayaal vocabulary badan baa ku jira inaad ka qorataan oo barataan baa muhiima.